muuqaalkan waxaan filayaa in nuuciisa aadan hore u arag dad badanna ay ka heli doonaan kuwa kalena ay ku riyoodaan laakiin bilowgiisa iyo dhammaadkiisa waa mid xiiso leh adiga hadda daawanaya muuqaalkan gabar iyo wiil midka aad tahayna like sar muuqaalka commentiska inoogu reeb aragtidaada iyo waxa muuqaalkan aad ka fahanto iyo waxa aad jeceshahayba aroos kasta waxa uu leeyahay waxyaabo gaar ah oo lagu xasuusto midba meel gooni ah buu ka dhacaa midba guri ka dhaca midna hodheel halka kuwa kalena laga diiwaan geliyo xusuuso balse wiil iyo gabar kasta waa dooqooda iyo waxa ay ku heshiiyaan laakiin muuqaalkan waliba diyaaradan korkeeda waxa ka dhacaya aroos laakiin arooska iyo dadka ka soo qayb galayba dhammaantood waa kuwa cajiib ah diyaaradan dadka badan ay saaran yihiin waxa ka dhacaya aroos lamaane ayaa farxadooda tahay maalintooda loo hibeeyay gabar ayaa dalbatay in arooskeeda halkan uu ka dhaco dhammaan dadka aad aragtid muuqoodana diyaaradan la saaran waa marti sharaf lagu casuumay xafladan aroos ee ka kordhacaysa diyaaradan marti sharafka ayaana isugu jira saaxiibo ehelo labada qoys ah iyo dad kale oo iyagu diyaaradani hore ugu sugnaa aroosadan saygeeda ay ka codsatay in guurkooda uu ka dhaco diyaarad hawada ku jirta laakiin ugu dambeyn uu aqbalay maadaama jacayl baaxad weyn uu qabay waa dhif iyo naadir in la arko aroos noocan oo kale ah kana dhaxdhacayo diyaarad korkeeda waliba hawada ku jirta waxaase la yaab leh in kaamirmaanka duubaya arooskan isaguna uu ka mid yahay marti sharafka iyo dadka diyaaradan saaran bal eeg sida jabiga uu yahay qaabka martida ay u fadhiso farxadda ka muuqata inanta aroosada ah iyo sida loo soo dhaweynayo arooska iyo aroosada waxaa sidoo kale eegtaa waxa halkan ay ku dhex sameynayaan. Olda said I do on a Southwest flight. So why the mile high wedding? gabar iyo wiil midka aad tahay ma jeceshahay aroos noocan oo kale inaad dhigataan qaybta hoose ee commentiska inoogu reeb aragtidaada muhiim ayay inoo tahay.